jimco wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada Fagaare Production maanta oo idin hayo waxa kamida madaxweyne Farmaajo oo kulan degdeg ah isugu yeeray madaxweynayaasha maamul goboleedyada kadib markii qaramada midoobay ay si kulul u canaanatay madaxda Soomaalida haddaba Axmed Madoobe iyo Siciid Deni ma ka qayb gali doonaan shirkaasi dawladda Soomaaliya oo ciidanka gorgor geenaysa soodinta Puntland iyo Galmudug iyadoo laga cabsi qabo in ciidamadan gorgor ay la wareegaan deegaana ka tirsan maamulka Puntland dawladda Djibouti oo jawaab ka bixisay fariintii dhawaan uu diray amiirka al-shabaab oo ku hanjabay in kooxdooda ay weerar ka fulin doonaan dalkaasi Puntland oo shirka Sabtida la filayo in Muqdisho uu ka dhaco ka soo saartay war wixina naqdisay sheegashada madaxweyne Farmaajo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabana wuxuu ka badbaaday arin uu xilka ku weyn karay haddaba maxay tahay arintaasi qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa warkeena maanta waa jimco taariikhda waxay ku beegan tahay 2 bisha Abriil 2022 like saar muuqaalka lana wadaag asxaabtaada si ay u daawadaan warkii oo faahfaahsan markale kulanti wanaagsan daawadayaal aan ku bilaawo warkeena maanta madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markale kulan isugu yeeray madaxweynayaasha maamul goboleedyada sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube wasiir Dube ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka ku yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markale isugu yeeray madaxweynayaasha shanta dawlad goboleed iyo gobolka Banaadir inay shir ice break ah isugu yimaadaan maalinta Sabtida 3 Abriil 2022 si looga wada hadlo hirgelinta heshiisyadii 17 September 2020 iyo 16 Febraayo 2022 sida ka muuqata qoraalka wasiir Dube ee ah ice break kulanka ayaa noqonaya mid kalsooni dhis iyo in meesha laga saaro kala shakiga xoogan ee ka dhaxeeya labada dhinac shirkan ayaa noqonaya kii lixaad oo madaxweyne Farmaajo uu isugu yeero madaxweynayaasha maamul goboleedyada beesha caalamka ayaa tan iyo labadii maalin ee la soo dhaafay waxay cadaadis xoogan ay saarayeen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana shirka Sabtida la filayaa in beesha caalamka ay goobjoog ka noqoto isla markaana shirkaasi looga heshiiyo ajandaha shirka weyn ee soo socda ilwareed ku sugan xalana ayaa waxay sheegayaan in haddii toddobaadkan xal uu imaan waayo laga yaabo in beesha caalamka ay toos u soo fargeliso arrimaha Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay soo saaray qoraal adag oo ay kula hadlayso hogaamiyaasha Soomaalida waxayna ku amartay in si degdeg ah loo dhaqan geliyo heshiisyadii 17 September iyo 16 Febraayo ee lagu kala gaaray Muqdisho iyo Baydhabo waxaa la filayaa maalmaha soo socda in heshiis rasmi ah laga gaaro khilaafka arrimaha doorashada wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan insha Allah qaybaha hore ee warkeena ayaa daawanaysaan markana Puntland ayaa soo dhaweysay shirka la filayo inuu Sabtida ka dhaco teendada Afisiyoni ee ay soo qaban qaabisay beesha caalamka sida ay sheegtay kaasi oo ay yeelanayaan madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri Puntland waxay soo dhaweysay dadaal ay waday beesha caalamka oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa caqabadaha ku xeeran arrimaha doorashada waxaana la isla gartay in Sabtida 3 Abriil ay madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ay isugu yimaadaan shir hordhac u noqda shirka wada tashiga arrimaha doorashada qoraalka Puntland ayaa sidoo kale naqdiyay qoraal xalay ka soo baxay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku sheegtay inuu shirka isaga isugu yeeray si kastaba Puntland ayaa sheegtay in shirkan ay soo qaban qaabisay beesha caalamka shirkan oo ay soo qaban qaabisay beesha caalamka ayaa ujeedkiisu yahay si madaxda Soomaaliyeed ay is-afgarad uga gaaraan ajandaha shirka iyo sida ugu haboon ee uu u qabsoomayo shirka wada tashiga ayaa lagu yiri qoraalka Puntland shirka Sabtida ayaa ah mid aan rasmi ahayn waxaana kaliya looga hadlayaa ajandaha shirka weyn oo weli aan la isku raacin waxaana marka ajandaha meel isla dhigo kadib furmi doona shirka qaran ee wada tashiga arrimaha doorashooyinka saraakiil ka tirsan ciidanka gaarka ah ee militariga Soomaaliya ee gorgor ayaa inoo xaqiijiyay in maalmaha soo socda boqolaal kamid ah ciidanka gorgor la geyn doono qayb kamid ah gobolka Mudug ciidankan iyo gaadiidkooda ayaa la qorsheeyay in la geeyo deegaan u dhow Goldogob oo ka tirsan gobolka Mudug deegaanada ciidankan la geyn doono ayaa ka tirsan Galmudug hase yeeshee waxay ku yaalaan soodinta Puntland iyo Galmudug ay wadaagaan ilo kuwa ammaanka ah ayaa sheegay in ujeedka ciidankan loo geenayo Mudug ay tahay in culays lagu saaro Puntland oo kamid ah labada maamul ee diidan
amarada dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo in ay doorasho dalka ka dhacdo. jabi colaadeed iyo saansaan aan wanaagsanayn ayaa ka jira Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho iyo meelo ka mid ah gobolada dalka, waxaana aad looga cabsi qabaa in ciidamadan gorgor ay gudaha u galaan deegaanada Puntland isla markaana qayb ka mid ah deegaanada Puntland ay la wareegaan. weli dowladda Soomaaliya kama aysan hadlin warkan oo aad loo hadalhayo saacadihii la soo dhaafay. sidoo kale Galmudug iyo Puntland ayaanan weli ka hadlin arintan. Puntland ayaa dhawaan ku eedeysay dowladda federaalka inay wado dadaalo ay ciidamada gorgor ku geenayso deegaanada maamulka Puntland. Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Puntland ayaa horay u sheegay in ciidanka gorgor ay yihiin ciidamo laga cabsado isla markaana aan naxariis lahayn. wuxuuna sheegay mar uu Garowe ka hadlayay sababaha uusan Muqdisho u tagi karin inay qayb ka tahay cabsi uu ka qabo Villa Soomaaliya iyo ciidanka gorgor ee sida gaarka ah u tababaran. madaxtooyada Jabuuti ayaa jawaab ka bixisay hadalkii ka soo yeeray amiirka kooxda Al-Shabaab Axmed Cumar Abu Cubayda kaasi oo ku baaqay weeraro kala duul ah oo laga fulinayo gudaha dalka Jabuuti. Abu Cubayda oo dhawaan soo duubay fariin 20 daqiiqo ah ka hor doorashooyinka madaxweyne ee 9 bishan ka dhacaya Jabuuti ayaa yiri guud ahaan qabaa'ilka muslimka ah ee ku dhaqan Jabuuti waxaan leeyahay dhulkiina waxa uu hooy u noqday Faransiis iyo Mareykan. ogaada shacabka reer Jabuutiyo dowladda waqtigeeda uu sii dhamaanayo ee ina Cumar Geele waxay ka mid tahay cadawga ugu weyn ee muslimiinta bariga Afrika. Ismaaciil Cumar Geele wuxuu suurtageliyay in muslimiinta bariga Afrika looga soo duulo dalkiina Jabuuti gaar ahaan Soomaaliya. waxaan reer Jabuuti ugu baaqaynaa inay iska dulqaadaan xukunka Ismaaciil Cumar Geele. waxaa waajib idinku ah sidii aad dalkiina uga saari lahaydeen Faransiiska markasta aflagaadeeya nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. madaxtooyada Jabuuti ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay ka warhayso fariinta Al-Shabaab waan ka filaynay hadal sidaasi u xun eedeema aan sal lahayn iyo hanjabaad ka timaada urur halista ugu degdega badan ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Jabuuti ayaa sheegtay inay tahay siina ahaan doonto saaxiib dhab ah oo ay leedahay Soomaaliya iyo jilayaasha caalamiga ah ee dadaalka ugu jira inay gacan ka geystaan xasiloonida Soomaaliya. Jabuuti waxa hanjabaad kasta oo si toos ah loogu jeediyo dalkeena u qaadan doontaa si dhab ah si buuxda ayayna ugu diyaarsan tahay inay wax ka qabato ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda Jabuuti. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa safar dhinaca dhulka ah shalay ku tagay degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. si diiran ayaa loogu soo dhaweeyay markii uu tagay deegaan xeebeedkan iyadoo wasiir iyo xildhibaan ka tirsan Hirshabeelle ay wafdigaasi ku weelinayeen madaxweynaha Hirshabeelle. Cali Guudlaabe ayaa intaasi kadib dhagax dhigay dugsi cusub oo ardayda wax lagu bari doono si looga faa'iideeyo caruurta Warshiiq degan. Cali Guudlaabe ayaa sidoo kale ujeedku halkaasi u tagay waxa qayb ka ahayd xalinta dagaal beeleedyo halkaasi ka taagan in muddo ah. safarka ayaa la sheegay in uu ku soo dhamaaday jawigii loogu talagalay iyadoo ammaanka aad loo adkeeyay. haddaba dad ayaa su'aal isweydiinaya madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe ma wuxuu ka badbaaday arrin uu xilka ku weyn karay? jawaabta waxay noqonaysaa haa. 45 cisho ayuu dhigayaa dastuurka maamulkaasi in madaxweynaha Hirshabeelle uusan ka maqnaan karin deegaanada maamulkaasi. Cali Guudlaabe ayaa 40 cisho ku sugnaa Muqdisho balse shalay ayuu tagay degmada Warshiiq oo ka tirsan Shabeellada Dhexe. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkeena maanta. waad ku mahadsantihiin daawashada warkeena. daawade like saar muuqaal kalena wadaag asxaabtaada inta ku kulmi doono warkan kiisa xiga nabadgelyo.